بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد لله mahadoo dhan ilaah subxaanahu watacaala ayay usugnaatay. ilaahay subxaanahu watacaala abuuray wax walba. walaalayaal, ilaah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku sharfayaa dad aada u fara badan. dadkaasi waxaa kamid ah haweenka muslimiinta ah. run ahaantii horey waxaan u sheegay inaan ka hadli doono waana yar oo ku saabsan gabadha muslimada ah mase haweenka muslimada ah. taasi waxaa igu dhalishay inaan ka hadlo. run ahaantii waxaanu ku noolnahay wadan qurbo ah, wadan gaal ah. markii lasoo gaaro kuleeladane gabdhaha muslimiinta run ahaantii waxay isku dayaan in ay la qabsadaan mujtamaca mase bay-ada ay ku nool yihiin siday u dhaqmayaan inay u dhaqmaan. run ahaantii waa waxaan indhahayga ku arkay. waxaanu jeclaystay in aan waana yar usoo jeediyo gabdhaha muslimiinta oo ilaahi subxaanahu watacaala oo abuuray wax walba gabdhahaas sharaf weyn ku sharfay qur-aanka. run ahaantii gabadha muslimada ah sharaf weyn ayay leedahay. ilaahi subxaanahu watacaala ayaa doortay oo ka dhigay muslimad. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku amar ah haweenka rasuulka sala allahu calayhi wasalam, gabdhihiisa iyo gabdhaha muslimiinta oo dhan. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fi suurati alaxzaab: acuudu billahi min ashaytaan alrajiim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إله سبحانه وتعالى وحكم يا أيها النبي نبيو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كل هوينك هذا قبل هذا قبلها مؤمنين تأودن إن أي يدنين عليهن من جلابيبهن إن أي اسكد ذان شو كذا ذا رن أهانتي جيرك أولا أسطرة waa sharaf. taasi waxaa usii dheer waxaa ku amrayo ilaahay subxaanahu watacaala abuuray wax walba. marka waxaan leeyahay gabdhaha muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala wuu ini sharfay sharaf aada u weyn. is astura in shaa allah biidn illahi alkariim. jirkiina banaankaa soo dhigin. run ahaantii qofka muslimka ah waxaa fiican inuu ka naxo walaalihiis, ha ahaadaan gabdho, ha ahaadaan wiilal, ha ahaadaan dad kale. muslim qofka markuu yahay waxaa fiican inuu ka naxo oo shucuurtiisa qaado walaalka kale mase gabadha kale markay qalad sameyneyso. run ahaantiina gabadha muslimada ah waxaa looga baahan yahay wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay amreen inay sameyso. run ahaantii ma ahan wax qof, ha ahaado aabe, ha ahaado hooyo, wuxuu raba ha ahaado qof iska kaa dhahaya ma jiro jirkaada astur asagoona daliil iyo caddayn iyo sababta ay ku fiican tahay ku wadin. laakiin run ahaantii waxaan leeyahay insha allah biidn illahi alkariim gabdhaha muslimiinta ah sharaf aada u weyn baad haysataan. walaashay khaaliga ah, is astur. jirkaada waa lagu weydiinayaa maalinta yawm alaakhir. wallahi maalinta yawm alaakhir waa lagu weydiinayaa jirkaada. in aada is asturtana waxay dan u tahay kow adiga ayay dan ku tahay. sababtoo ah ilaahay ayaa adeecaysaa, ilaahay ayaa rumaysan tahay, ilaahay subxana watacaala wuxuu ku amra ayaa sameyneysaa. labo, laga yaabo inay gabdhaha muslimiinta ah kugu daydaan maadaama aan ku noolaha wadan gaal ah
waqtiga kuleeladan markii lasoo gaaro run ahaantii gabdhaha muslimiinta siday u labistaan markaan arko waxaan isweydiiyaa ma rumaysana miyaa ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa? sababtoo ah waxaan ogahay inay rumaysan tahay maasha allah, ay og tahay, laakiin shaytaan iyo bini-aadan oo isku tagay inay gabadhaas mase gabdhaha muslimiinta ah qalbigooda ka dhaadhacsiiyo macnaa waxaan ay sameynaysa inaysan ahayn wax aada u weyn. run ahaantii aada ayay u weyn tahay. kow, adiga ayaa dambi ku jiro. labo, walaalaha muslimiinta ah oo ragga ah oo wadada socdo ayaad dib usoo geeni kartaa, ayaa fitno iyo dambi usoo jeedi kartaa. macnaha gabdha qaar waxay dhahaan muu indhihiisa hoos u dhigo. sax, waa in ragga muslimiinta ah inay indhahooda ilaahay subxaanahu watacaala dartiis ay uga qarsadaan gabadhan fitnada ah ee socoto. laakiin su-aal baa idin weydiinayaa, hadday gabadhan isi soo qaawin lahayn miyuu fiirin lahaa? run ahaantii jawaabtu waa may. gabadha muslimada ahna sharaf ayay leedahay. run ahaantii wallaahi waxaan uga naxaa sida aan uga naxo walaashayda, waxaan uga naxaa sida aan uga naxo gabadha ila dhalatay aniga. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri inama almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo. sidaas darteed ayaan waxaan jeclaystay inaan usoo gudbiyo waana yar. ilaahi subxaanahu watacaalana ha ka dhigo gabadha muslimada ah mid ilaahay adeecda, ka baqda, wadadiisa raacda, jirkeeda asturta, ka fikirta familkeeda micnaha ceebta ee usoo jiidaysa. run ahaantii mararka qaar waxaan fiiriyaa sawir aada u weyn. qofka keli hadduu dhib sameeyo kuguma eka dhibka adiga keliga. dhibkaas waxay saameyn u yeelan kartaa kow, diinta islaamka, sababto a gabar muslimad baa tahay. labo, adiga. saddex, familkaada. afar, wadanka aad kasoo jeedo. micnaa waxyaabo badan ayaa laga fiirin karaa, qaab weyn baa laga fiirin karaa. marka walaalay, gabdhaha muslimiinta waxaan leeyahay ilaah subxaanahu watacaala ayaan idiin baryayaa inuu idin hanuuniyo, nawada hanuuniyo, idinku duwa inaad jirkiina asturtaan. run ahaantii igama aha inaan iska soo duubo video, mise igama aha inaan meeshaan soo fadhiisto iska hadlo. laakiin qofka mu'minka ah oo muslimka ah waxyaabaha qaladaadku u jeedo inuu saxo waa waajib ay ku tahay. waajib ayay ku tahay. qofkii qaadanayo oo dhageysanayo alxamdulilah, qofkii aan qaadanaynin oona dhegeysanayninna ilaahi subxaanahu watacaala ha ku duwo inuu garto xaqa uuna dhageysto. ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa tawfiiqda inuuna waafajiyo. ilaahi subxaanahu watacaala hanaga dhigo kuwa mar walba dhaho ihdina siraata almustaqiim, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. gabadhaas muslimadda hadday tukato ay mar walba dhahaysa iyaaka nacbudu, ilaahay adigaan ku caabudeyna, wa iyaaka nastaciin, adigana kaalmo ku weydiisanayna. hadalkaas ay dhahayso caabuditaanka ilaahay la caabudo waa in aayaadkiisa qur-aanka la raaco ay sunnada nabiga maxamed sala allahu calayhi wasalam. jaceylka ilaahi subxaanahu watacaalana loo qabo waa jaceylka nabiga maxamed sala allahu calayhi wasalam loo qabo. sababta ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ترجع شيء إله كله. قل إن كنتم تحبون الله، هداتهن كوجع الإله سبحانه وتعالى فاتبعوني، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم راع يحببكم الله، جعلك إله باهي لسان، جعلك إله كلمة أهني ويغفر لكم ذنوبكم، ذنبكينا نويل دافع ولا لي هذا إله جعل شاهد جرك هذا أسطر إله سبحانه وتعالى كأبورينا كبر جوي كان اسبدال عينه هكو داينين هنقنين مركي فينتر لسوغار قبل إس أسطرتا مركي سمر لا إمادنا قبل دركيذا ديقتا oo bay-ada gabdhaha gaalada ah ku dayata ha noqonin insha allah biidni illahi kariim. waa iga waanadaasna ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa ayuu ku yiri wadakir fa ina adikraa tanfacu lmuminiin.
insha allah waxaan hubaa gabadha muslimadda hadday qalbigeeda ilaahay ku xiran tahay, ilaahay jeceshahay, siday rabtaas kusoo qaawan jirteen, in ilaahay subxaanahu watacaala ay ilaahay subxaanahu watacaala jecelka u qabta hadday kalsooni ku darsato inuu ilaahay subxaanahu watacaala caawin doono. ilahay waxaan weydiisanaynaa tawfiiqda inuuna waafajiyo. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh. wixii khayr aan sheegay waxay ka timid ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkeen maxamed sala allahu calayhi wasalam. haddii aan ku hadlay hadal qadal ah mase erey qalad ah, waxay ka timid aniga iyo shaytaan. ina shaytaana cadow, shaytaanna waa cadowgeena walaalayaal. ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka magan galnay. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.